maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa xukunno ku riday 4 qof oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin al-shabaab. 4 qof ayaa lagu eedeeyay in ay ka mid ahaayeen shabakad ka jirtay galbeedka Muqdisho isla markaana dilal kala duwan ka geysanaysay gudaha magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa waxa uu ku dhawaaqay xukunka raggaasi eedeysanayaasha ah. Doodeer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedeysana Shucayb Cabdullaahi Maxamed uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in uu al-shabaab kaga biiray degmada Diinsoor gaar ahaan qaybta dabagalka markii ay dawladdu la wareegtay Diinsoorna ay xamar u soo guureen ehelkiisa isagana uu dib ula xiriiray kooxda al-shabaab isagoo ka mid noqday qaybta fulisa dilalka qorsheysan fuliyayna dilal ay ka mid yihiin dilkii marxuum Xuseen Macalin Cali Jilcow Yuusuf Cabdullaahi Maxamuud Cabdullaahi Ibraahim Xasan Gambar Cabdi Cali Maxamuud sidoo kale wuxuu eedeysano Shucayb sheegay in isaga iyo eedeysanaha laba saadaq ay wada geysteen dil markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedeysana Maxamed Cismaan Axmed uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab uuna tashkiiliyay ilka case isagoo qaabilsanaa inuu wada ka ahaa mootobajaaj uu u adeegsanayay keenista iyo ka qaadista bistooladaha lagu fuliyo dilalka qorsheysan sidoo kale wuxuu sheegay eedeysanuhu inay ciidamada amnigu soo qabteen isagoo mootobajaaj ku wada eedeysanayaasha Shucayb iyo Ismaaciil oo ku hubeysan 2 bistooladood markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedeysane Ismaaciil Maxamed Aweys uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab tababarna uu ku soo qaatay Mubaarak markii uu ku soo laabtay magaalada Muqdishona oo la kulmay horjoogihiisa ilka case oo u diray 3 howlgal oo dhammaantood fashilmay oo uu ugu dambeeyay howlgalkii fashilmay oo uu ku doonayay in uu ku dilo Baarliin Cabdi Warsame markay dhageysatay maxkamaddu markaatiyaashii la horkeena midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo jooga bar kontarool oo lagu hubiyo gaadiidka ay soo martay mootobajaaj ay saarnaayeen eedeysanayaasha kala ah Shucayb Maxamed Cusmaan iyo Ismaaciil markii ay joojiyeen ay baaritaan ku sameeyeen kadib kana heleen 2 bastoolad sidaasna lagu qabtay sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in 4 eedeysana ay wada yihiin dambiilayaal gale dambiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay 1 dambiile shabaab Shucayb Cabdullaahi Maxamed dil toogasho ah 2 dambiile shabaab Saadiq Cabdi Jabbaar Umar dil toogasho ah 3 dambiile shabaab Maxamed Cismaan Axmed xabsi daa'in 4 dambiile shabaab Ismaaciil Maxamed Aweys xabsi daa'in cidii aan ku qanacsaneyn xukunka maxkamadda waxa uu furan racfaan wabillahi tawfiiq Maxamed Cabdinaasir ayaan leh Universal TV